kulankan ayaa ahaa mid uu soo qaban qaabiyay macadka horumarinta aadamaha oo kaashanaya ururka la dagaalanka kacdoonka qabyaaladda. kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay dhalinyaro aad u tiro badan kuwaas oo ka kala socday ururada bulshada rayidka. intii uu kulankan socday ayaa waxaa si qoto dheer loogu gorfeeyay dhibaatada ay leedahay qabyaaladdu, isla markaana waxaa la isdhaafsaday afkaar ku saabsan sidii loo xakameyn lahaa dhibaatada ay qabyaaladdu leedahay bulshada dhexdeeda iyo sidii xal waara looga gaari lahaa. ugu horeyn waxaa kulankaasi ka hadlay ujeedkiisa Maxamed Cumar Cismaan oo ah agaasimaha macadka horumarinta aadamaha ee Boorama. intaynu xaggan fadhino waxaynu si xalaal ah oo maskax furan uga doodi doonaa ereyga qabyaaladda oo ujeedada guud iyo siday tahay inta badan dadku ay ka habaabaan dadka ka habaabana ay tahay aniga iyo inaga. way nagu jiraan in fahamsan qabyaaladda faa'iido daradeeda waxtarkeega waxyeeladeeda dhaawac ay ku tahay nolosheena iyo halgaadka waxaas oo dhan way nagu jiraan dad fahamsan sidoo kale way nagu jiraan dad ka dhacsan oo fahamsanayn. then kulankeena wuxuu yahay kulan ku kala faa'iideysanayno oo noqon doona inaan isdareensiino waranka iyo dib u dhaca iyo halgaadda inagu hayso ereyga qabyaalad inaynu kala qaybsanaano is eegno xifaalkan qabiil naga dhaxeeyo qaar la yaso la yiraahdo kuwan waa kuwa yasan qaar la sarreysiyo mayane jihada aan u soconno waxay iska bedelaan inaynu noqono dad isfahamsan mutual understanding isfaham isjacayl wada noolaansho ahdaaf mida inaynu noqono taa markaan leeyahay waxaan uga jeedaa inaynu isku ixtiraamno inaynu nahay bini'aadam. sidoo kale waxaa kulankan sharaxaad kooban ka bixiyay Cabdifataax Faysal Xuseen oo ah xubin ka socday ururka la dagaalanka kacdoonka qabyaaladda. ATM wuxuu taagan tahay anti tribalism movement af Soomaali hadii loo eegana waxay noqonaysaa kacdoonka ka soo horjeedka qabyaaladda. qabyaalad marka laga hadlo waxa ka horeeya shay kale oo inta badan ay dadku la weydiiyaan oo ah qabiilka. dad badan baa waxay ku leeyihiin qabyaaladda ka soo horjeedaan reerkayga diidantiin majiritaankayga diidantiin ma inaan ummad jirtana ha diidantiin maya qabiilku wax xun maahan. ilaahay quraankiisa wuxuu ku leeyahay yaa ayuhan naas innaa khalaqnaakum min dakarin wa unthaa wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila. geestooda waxaa iyaguna ka dareen celiyay kulankani qaar ka mid a dhalinyaradii ka soo qayb gashay kulankan. qabyaalad waxa weeyaan in khalad loo adeegsaday qabyaaladna lama sixi karayo lama joojin karayo ilaa dib loogu noqdo in mabaadi'da qabiilka la soo soxo. qabiilku yahay wax ilaahay dadka u dhaliyay qof kasta ilaahay nasabkiisa u dooray aanu isagu dooran laakiin isticmaalka qabiilka oo si xun loo isticmaalo ay keenaysa qabyaaladda intii uu sababay qabyaaladdu ay sababtay taasoo ah wada noolaansho la'aan. haddii dhaqaalaha aynu samayno waynu ka bixi karnaa insha Allah waxa la yiraahdo qabyaaladda cidna isaleeli mayso doqon ma waa in laga sheekeyn maayo. Cabdilcasiis Ibrahim Cabdullaahi, Telefishinka Universal, magaalada Boorama.